فاعلا ولدالك كشفك فاعلا ولدالك كل اللي بك وانا ليسا كل اللي بك وانا ليسا كل مو انوراتو كل اللي بك وانا ليسا كل اللي بك وانا ليسا كل مو انوراتو كعكنا وسكنا ولا داري كعكنا وسكنا ولا داري قرمتنا وطنينا ولا داري قرمتنا وطنينا ولا داري كريا إلى الكذا ولا داري كريا إلى الكذا ولا داري كشمك فاعلا ولدالك كشفك فاعلا ولدالك كل اللي بك وانا ليسا كل اللي بك وانا ليسا كل ما انوراتو بسم الله الرحمن الرحيم نبدا داوديال meel kasto nagala jaan qaadaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni Emila Show oo alaaba aad nagala socotaan maalin kasto axada saacadu markay tahay 2 duhurnimo dhinaca Minnesota dhinaca Soomaaliyana markay tahay 10 fiidnimo daawadayaal waxaad nagala socotaan TV-ga caalamiga ee Tempo Africa TV sidii caadadu ahayd wiigii la soo dhaafay waxaanu dhexda uga jirnay barnaamij taxanaha oo aan ugu magac darnay xalinta khilaafaadka kaasoo aanu kaga soo hadalnay doorka uu ku leeyahay aqoonyahanku doorka uu ku leeyahay isinku iyo doorka uu ku leeyahay suugayahanku ama abwaanku daawadayaal maanta waxa marti noogu ah stuudiyaha maanta waxa marti noogu ah suxufi caan ah suxufi kaliya ma waa ustaad lama koobi karo haddaan isiraahdo title-kiisa ka sheekee waa Cismaan Cabdinuur Xaashi oo khaliifka looga yaqaano geyiga Soomaalida maanta wuxuu maanta isagu inooga sheekayn doonaa doorka saxaafaddu ku leedahay xalinta khilaafaadka haddaan wax yar markaa aan idin gulmaro Cismaan Cabdinuur Xaashi oo aad looga yaqaano dhulka Soomaalida waa xidaar aqoon baadhi sare oo weliba qoray dhiganayaal dhowr ah oo ay ka mid yihiin bugaagtiisa caanka ah ay ka mid yihiin hodannimada afkeena kii kale la oran jiray afdhaab tiraantina oo aan 7 xaraf ku jirin Cismaan Cabdinuur Xaashi waa qoraa sare suxufi abwaan ah waxa intaa u dheer waa suugayahan martimeere aan iskuulo badan wax ka soo dhigay xilligii dowladdii dhexe oo bara sare ahaa waa cilmi baare dadka bookshka loo yaqaano oo wax qora ah ururiyana taariikhda Soomaalida waxa markaa xusid mudan iskuulada wax ka dhigi jiray Cismaan Cabdinuur Xaashi waxa kamid ah iskuulkii la oran jiray Xamar Sare iyo dugsigii la oran jiray Banaadir Cismaan Cabdinuur Xaashi sida wada taqaaniin wuxuu ka shaqayn jiray Radio Muqdisho iyo fogaanargii TV-gii ay lahayd dowladdii dhexe ee Soomaaliya oo uu ka ahaa wariye iyo diyaariyad sare waxaa markaa laga xusuusan karaa barnaamijyadii uu isagu soo jeedin jiray barnaamijkii caanka ah ee la oran jiray sheeko gaaban oo xaqiiqdii dadkii dhegeysan jiray ay garanayaan sida cilmiyeysan u soo jeedin jiray oo hadda wadannada westernka waxay yiraahdaan dadka wax qora take the readers with you sidaasoo kale buu Cabdinuur ku guuleystay inuu markuu akhriyo sheeko gaaban aad raacdo oo ku tuso environment uu ka hadlayo sheekadu meesha qusayso dhinacay u dhacayso oo ah itus oo itaabsi oo aad dareemaysid dhadhaminaysid maqlaysid oo xigmad badan uu ku dabaqi jiray wuxuu kaloo soo jeedin jiray barnaamijkii ciyaaraha iyo bandhigii raadiyowga Cabdinuur wuxuu ahaa TV-ga wuxuu ka jeedin jiray barnaamijyo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen filmo uu kaga hadli jiray bilicda iyo baaxadda buurta daalo sooyaalkii magaalada Muqdisho jasiiradaha gobolka ku yaala Jubbada Hoose taariikhdii Cadale iyo Warshiikh Cabdinuur wuxuu ahaa suxufiga ugu horeeyay magaalada Laascaanood ka fura
wargeyskii la oran jiray nugaal oo uu furay 1991 markii dowladdii dhex burburtay wuxuu cabdinuule soo shaqeeyey idaacado dhowr ah oo ay ka mid yihiin kuwo badan oo ku yaala Mareykanka Canada Yurub Afrika iyo idaacadda BBC qaybteeda afka Soomaaliga marka haddaan intaa aan ku joojiyo wax laga dhamaanayo ma haddaan maanta yiraahdo introduction baan ku sameynaynaa taariikhdiisa iyo wuxuu yaqaan iyo intuu og yahay iyo qofku yahay baa waxaan doonayaa bal inaan aan horta bal su'aalaha aan ku horeeyo Cismaan Cabdinuur Xaashi ma maqlaysaa si wacan Axmed Warsabeed yaad ما شاء الله waxaan doonayaa Cismaan su'aasha ugu horeysa aan doonayay inaan ku weydiiyo ma aha mid ku saabsan programkan aan ka hadlaynay khilaafaadka iyo doorka saxaafadda waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo wiigii la soo dhaafay bishii 9 waxaad safar ugu baxday magaalada Buuhoodle oo aad kaga qayb gashay xaflad lagu sameeyay oo uu soo diyaariyay naadiga qorista iyo akhriska jaamac Umar Ciise oo aad loo soo agaasimay cajaladii baan daawaday sawirradii baan arkay dhalinyaro aqoon sare leh oo xaqiiqdii aftahanimo iyo ay ka go'an tahay inay ururiyaan taariikhdii iyo jiritaanka soo jireenkii taariikhdii ummadda Soomaaliyeed ayaad meeshii kula kulantay maxaad nooga sheegi kartaa adoo soo koobaya safarkaaga Cismaan bismillah Axmed Warsabeed yaad baad u baasan tahay safarkaasi wuxuu ahaa safar xiiso badan oo aad u qiimo leh nin qurbajoogta leeda Xuseen Axmed ayaa ka mid ahaa raggii soo qabqabiyay naadiga qoraalka iyo akhriska Ismaaciil Mire Xuseen Aadan Kanaac oo Mareykanka kula degan wuxuu ahaa mid qiimo leh oo aad iyo aad dhaxalgal u ah waxaana ka wacdiyeynay dhalinyarada gobolka Cayn gaar ahaan Buuhoodle midnimada iyo nabadgelyadu doorka ay ku leedahay waxaa kaloo uga sheekeynay dadka gobolka Cayn ku dhashay ee Soomaali iyo adduunkaba magac ku yeeshay ilaa 34 qof oo xagga waxbarashada maasiyada ciidamada suugaanta ganacsiga iyo ilbaxnimada iyo xadaaradaba leh waxaan iyagu garanaynba ayaan uga sheekeynay waxaan kula iswadaagsanay talooyin fara badan oo bahda qalileyda la gaar baan ula shiray bahda suugaanta la gaar baan ula shiray waxaana joogtay oo ku hawlan cilmi baaris qoraallo iyo tixraacyo fara badan oo markaasi ay taariikhda iyo dhaqanka iyo afka ummadda Soomaaliyeed ay ku mashquulsan yihiin wuxuuna safar aad u qaaray magaalada meel ka baxsan baan ugu soo dhaweeyey hoteelka ugu qaalisan baan la dejiyey jaamacadda bariga Afrika iyo hoteelka Rays ayaa laba habeen xafladu ay ka soconayeen si nabadgelyo loo kusoo noqonay habeenkii xay ilaahay baa mahad si weyn baan ugu mahadnaqayaa Xuseen Aadan Kanaac naadiga akhriska qoraalka Caasha Cuud iyo walaashay Nasr Buuhoodle iyo guud ahaanba dadweynaha magaalada Buuhoodle oo loo kaalin soo dhaweynayeen aad iyo aad Xuseen Aadan Kanaac fariinta waa ka gaarsiinayaa isku magaalada joognaa waan aqaanaa marka haddii aan guda gallo mawduuceena oo ku saabsan xalinta khilaafaadku sida la sheego inta badan wuxuu ka bilaabmaa laba qof oo isqabtay oo marka haddii aan la joojin uu ku fido bulshada inteeda kale oo saameyn ku yeesha marka inta badan khilaafku wuu dhaca laakiin muhiimaddu waxay tahay sidee lagu xallin karaa iyo cidda xallinaysa marka 30 sano ugu dambeysana waddanku dowlad xoog la muulahayn marka isbedelo intee leeg baad saxaafadana waad ku jirtay baad hadda is leedahay bay ku leedahay saameynta dhinaca amniga iyo wacyigelinta saxaafaddu xilliga lagu jiro waadsantahay Axmed Warsabeed runtii saxaafadda maanta waxaa u badan daayar dhalinyaro ah oo markaasi aqoon fara badan oo saxaafadeed aan lahayn ayeeshee kamarada sida loo duubo iyo sida barnaamijyada loo editgareeyo oo keliya la baray 5 qof ama 6 qof shaqadii ay ku qaban jirtay saxaafadeedii oo runtii aad ummaddu u jeclayd inkastoo dawli ahayd aan madax bannaanayn haddana aqoon ku salaysnayd iyo wacyigelinta waxbaridda maaweelinta bulshada waxay kaga duwan yihiin kuwan iyaga ayaa qalabkooda wata laabtobkiisa isaga haysta moobeelka dadka kula xidhiidhaya isaga haysta kamaradiisa isaga haysta tababarkiisa iyo aqoontiisa guud isaga wata tiifiyada Soomaaliya ku hadlaana dhaqan aan wanaagsan ay dhalinyarada fahdilaan gobol heshiisna la gelin haddii magacooda warar ay soo direen waxyaalo ku gaadhana aan ka daba tegin una hadlin bacina weliba markay barnaamij duubaan ama war
إن يجي العكس كانوا يقولون برنامج كان تلعب ما تكاد العكس صوت هم تيساس الكوديين مودد إلى إسكان بينهم صعفوا لو عملت فوري ولا بكشة ولا مدة اللي هو باور كافراد runtiina way qiimo badan tahay laakiinse dhalinyaradaasi sida ay caan u noqon lahaayeen ama magacooda loo baran lahaa ayay ku bedesheen xuquuqdoodii oo dhan ragga mulkiilayaasha jiifiyada soomaaliguna ma daryeelaan dhalinyaradaasi waxay eegaan oo keliya xagga dhaqaalaha oo marka xaqiiqada laga hadlayo saxaafaduna dhibaatooyin badan bay keentaa iyagoo aan anshax iyo intikastii saxaafadda ku dhaqmayn amaba aan xitaa juleelitirka samaynayn haddii cidi cabanto oo kale ama qof mas-uul ah ama dad ama shajarayd waa inaad markiiba cidda kale la xidhiidhaa si aad isugu balans garaysid oo cadaalad iyo dhexyaal u noqotid dhexdhexaad ha yeeshe iyagu aqoonba uma laha oo qofku u yimid unbaa xoogaa u dhibaya dabadeedna waxbay dirayaan fitno horle ayaa ka dhalanaysa marka dhibaatadaasi waa xagga aqoonta waanu isku daray kuwaanu isku mantaqada nahay inaanu tababaro badan siino oo wacyi gelino oo wax u sheegno ha yeeshe waa mashquulsan yihiin sidii ay barnaamijkan u diri lahaayeen oo keliya runaantiina dhibaatooyin badan bay keentaa saxaafaddu oo fitna ah ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahay alfitnatu ashaddu min alqatli fitnadu iyadaaba ka daran oo ka dhibaato badan dilka waayo dilku hal qof ama laba ku kobnaan kara fitnadiisu waxay camimaysaa oo saameyn ku helaysaa boqolaal iyo kumanaan qof markaa saxafiyiinta burburku runtii aqoontii ayaa ku yar aqoonta farsamo ahaan unbay bartaan laakiin aqoontii saxaafadeed iyo aqoontii guud ee laga rabay inuu qofkaas ugu yaraan jaamacad ka soo baxay oo kale aqoonta guudna waa inay dhisan tahay shaqada waa inuu heelan yahay oo daacad yahay markaasi waa dhaliilaynaa raggii hormuudka u noqon lahaa gacan qaban lahaa tiifyada lahaa seminaaro iyo tababaro u samayn lahaana dhaqaalaha yarun bay ku haystaan waa marka xaqiiqada laga hadlayo marka dhibaato badan bay keentaa iyo fitno iyo isku dir umadeed dirkaba waa ku fahmay cismaan ishaad ka riday marka waxa weeyaan adigu suxufi horena waad ahayd aqoonna waad u leedahay ethicskana kama soo hadho marka saxaafaddu door xasaasi ka ciyaartaa xalinta khilaafaadka iyo in laga hortago iyo in ummadda la wacyi geliyo iyo in ummadda loo sheego wixii sax ah marka 30 sano la soo dhaafay sida aad xustayba saxaafaddu way farabadatay jaantaa rogan bay noqotay waa dadka telefoonada la yaacaya wax badan hadda uma baahno telefoonka qofka helaa waa duubaya YouTube waa wada YouTubers qolada TV-guna waxay eegayaan hadba wixii viewer ay helaan marka xad male la xisaabtan male faafreeb male dhibaatadiina waxaad moodaa inay qayb ka yihiin maamul xoog leh oo xaliyo oo joogteeyana male exdii iyo qabiilkii iyo dadkii fidmada waday bay focus gareeyaan xoogga saaraan oo maanta haddaad adigu intaad telefoon u dirto tiraahdo baaq nabadeedaan dirayaa idna ku iman mayse laakiin haddaad tiraahdo qolo hoblaan wax ka sheegaya waxaa laga yaabaa inay isugu kasoo habar wacdaan sidee dadkii looga dhaadhiciyaa inay waxani damage iyo dhaawac weyn ku tahay oo weliba sidaa aad sheegtay hadda maraykankan joogno waa hay'adda afraad ee ugu xoogga badan waddanka maraykanka waa meesha dadku ka shidaal qaataan dad aan aqoon sara ahaynina kama shaqeeyaan dadka YouTubers iyo meel walba waa joogan dunida laakiin marka TV iyo laga hadlayo iyo institution media dhisan oo platform ah dee waxay ahayd in la xadeeyo oo la joojiyo adigu ka cismaan ahaan waddankiina intaa waad joogtay wax isbedel oo aad leedahay ka soreyn baa jirtay iyo dadkii wacyigelin iyo in lagu qanciyo qaabkan ay ku socdaan ficneen ma jiraayo aad leedahay horumar baa laga sameeyay runaantii manطقadaha lagu dhow xagga Hargeysa iyo Garowe waxa ka dhisan urur saxaafadeed oo lagu magacaabaynayo kuwa madax banaan waxa kaloo la siiyaa xeerka warbaahinta ee maamuladaas ha yeeshee tababaro kaliya ay u qabtaan waxa weeye kuwa hay'adaha ajnabiga ay ka dambeeyaan kuwaasina waa kuwa si dhibaateeya oo ka dhaadhiciya saxaafaddu way madax banaan tahay waxa waxa doontaan wanaad sheegtaan ilaa la helo dawlad Soomaaliyeed oo markaasi dhaqankii iyo akhlaaqdii iyo etikiskii bay ilaalisa saxafiyiinta iyo warbaahinta tababarta ma iima muuqato mulkiilayaasha TV-yadu way samayn karaan wayna u fududahay inay online-ka casharo ku siiyaan iyo inay si kaleba ay ula macaamilaan ha yeeshee iyaguna
بعد مدة أنا دلائل إنتاسي هذه اللي كانت توصل كأني اللي بتشوف كأنه وما هطلع المدرسة عصبة هور لا يقعدنا يا إنك الصحف جوا حصورنا يا قبل با لقعدنا يا هدي أمشي كبحديره ما كاسو إلا هو يعني الحق تكاد وكبر خيابة كان ماشي اللوجيرين كاسو كوش جاي دولة الصومالية وناكسن أو أقول يو فرسمو يعلم وحقوق المنسى أو مكاسي حكمين كرتا حيرنا ودتشي كرتا تبابري كرتا أقول تو ذكرني كرتا أيوم بانو أكاين الرجل تاي تانا نحرس إلى لقى وصل مايو أي شيء وين دتك وين تريمان وين تريمان ليه قبل كم تجلس كذا كاميرا مانكو قاربا نيكا دوبيا تفترها على صعدا برنامج صوصارها كحجة بس لما يقال كان شكون دريا إلى شن قفل قف بكسر كذا شغله هذا اللي يرى ولا بتنشرها ما لو يتوجهها ما شغلة تشيله هذا سكوايو إزاي أنت فهم سنين هذا الكورة يعني بتذكر على كرتا يو أمنية لو هو يا با قفل خطر قليا حير كصحافة كل شيء تبانتا إحنا لالوشكا أمنية ولا خطر قليا وأنا واحد عالمي يودون كل أساس كده أي شيء أقول وهايسلا أقولتي هي ضدتي ما يسلا أقولتي علمي يا شغلي أي إسلا أو الإيران لبروه كليا برنامج هذا كمبيوتر هذا يسدي لوسد كريلا لولا دير لا كليا أي مشغول كوا يقولون ما كان هلا نوعان نقطان أي يقول أفسد الحقوق دي كوي توبر لا مامورود لما توبران أو مثلا يعني وايس مثلا تيفيو أول كتير 24 hours هذا مثلا تبلان تيفي بدلان تيفي سومالان تيفي أو كذا سيء كنكتين واحد يجوا ديجا أو فابيا دايدو وذيو مامورود كوا سؤال من حبنا إن بحنت ورجعوا يسوق السنة هاي رجعوا الدولة الصومالية وأقول يدريال يدرين وحكوا هكذا aad marka shaki kuma jiro in aqoon darrada jirta ee baahsan ee dhalinyarada haysata iyo tiknoolajiyadan casriga ah iyo social media iyo waxa weeyaan meel walba free ah iyo dadkii oo aan isxilqaamayn taas waxay keentay in wadankii oo kasoo kaban lahaa 30 sano oo burbur oo qabiil iyo kala qoqob ku jiray inuu hadda sii fidayo oo maalin walba aad arkayso caaqil cusub baa la magacaabay oo kun TV laga soo deynayo Facebookeeda ku jira mid kale oo madiicaayaya mid kale wax aan fiicnay sheegaya dadka hadda ugu fiiyo wariska badanina waa dadka fidmada ka shaqeeya xaqiiqdii marka way dhib badan tahay sida hadda looga gungaadho oo looga miro dhaliyo sidii loogu soo dabaali lahaa sida saxa ah marka iyadoo hadda aad moodaba inay rajabeel u eg tahay sidee baad isleedahay dadkan ilaa hadda kamaradahan iyo waxaanay ku raran yihiin lagama roogi karo oo lagama reebi karo waana adigaa sheegaya wadda degdegayo aqoon booma baano nin wax degdega wax ku helay dee aqoon wuxuu ku falayaaba iska yar nidaamkiina disable bay ka dhigeen iyo jiritaankii ummadda dowladdiina hadday shaqayn lahayd waxay shaqayn lahaydba meel kastay joogto ama maamul goboleed ha ahaatee ama mid dhexe ha ahaatee waxa disable ka dhigay waxa weeyaan wararka propagandada ah ee yaacaya ee dadka isku diraya sidee baad leedahay waa la soo waafajin karaya in kasta aad moodayso su'aasha isku soo noqonaysa dhib badan tahay aad baa u mahadsantahay axmed warsame runtii way jiraan suxufiyiin hore oo wayaaraga oo aniga daacadeeda iyo kuwiiga waaweynaa iyo kuwii lagu xigayba oo gobollada iyo muqdishada jooga laakiinse inta badan dadkaasi dhalinyarada kuma xidhmaan mana waaniyaan waxna uma sheegaan runtiina waxaa habboon in warbaahinta lafteedu waa meesha keliya ee guri walba kasta ee dadka oo dhan saamayn ku yeelataa waana shaqada ugu wanaagsan ee xafiis kasta loo ogol yahay madaxweynaha maraykanku imika awoodu ma leh ta adigu aad awoodu leedaayo inuu maalin walba 30 daqiiqadood ama 2 saacadood la hadlo shacabkiisa boqorka carabta ee lacagta badan ee shacabku awoodu ma leh sababta awooddaas ay ilaahay siiyey iyo kalgacalka ummadda marka uu yahay mid aqoon leh oo daacada oo danahooda ka shaqaynaya waxbarashada manaahijta dugsiyada iyo warbaahinta ayaa labada meelood ee sideeyahay bulshada waa laga sixi karaa waa laga toosin karaa warbaahintana haddii markaa ama ciyaarso xilqaanto
ama dowladnimaha hagaagtee warbaahinta lafteedu inay soo sheegto oo soo dayso baahiso dhaliilaha warbaahinta burburka sida imika aynu uga hadlayno oo kale faa'iido ayay noqon kartaa inkastoo soomaalidu dhaliisheeda aanay qiran ay ku adkaysato taasina ay dhaqan iska tahay waxaa habboon in nin kastoo waayaaraga ama dadka iyo dalka u damqanaya inuu kaalinta ka qaato ugu yaraan wacyigelin iyo waana siiyo warbaahintiinuna aad wadaan idinka laftiina aadna ku ekaan temba north america facebookyada iyo soo gashaan youtubeyada aad halkaas wacyigelinta ka wadaan dadka aqoonta wanaagsan dabaradooda raadtaan ee soomaaliyeed la dhidhaan oo halkaa uga baahisaan qayb bay noqon kartaa weyn oo wax ka tari karta watayaahuduna waaya dhigii hela waaniya wanaagsan kii markaa wanaagsan dadkuma wada xuma ee aqoontu yar tahay halkaas ayaa wax lagaga bari karaa lagana wacyigelin karaa lagana hagi karaa marka qof kastaaba raqaba ku raggeeda meesha uu joogo inuu iska xilqaamo oo danta guud ee ummadda ka shaqeeyo warbaahintuna waa shaqada keliya aan ilaahay waxaan karin oo ceebta ka dhacda haddii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay isficlaan xafiiska inta joogtay dhowrka qof keliya ayaa og ay ku kooban tahay hayeeshee warbaahintu malaayiin ayay gaaraysaa daqiiqado hadhowna kama dabategi kartid marka muhiimadaana way leedahay dhibtaana way leedahay oo waa mindi laba afle baa leedahay marka aynu bilowno qof kasta oo xilkasta oo danaynaya shacbiga iyo dantiisa iyo amnigiisa iyo wanaagiisa iyo horumarkiisa iyo midnimadiisu inaynu waanino kolley qaar unbaa ku waansami doona markii aynaan odhanin dowlad ilaa la helo maya qof walba kaalintaad ka qaadan karta inaad ka qaadato ayaanu ku talinayaa waxaana rajaynayaa haddaynu ilaahay barno ilaahay wax badan buu naga aqbalayahay inaan u ducayno warbaahintu waataa aynu u adeegsan karno samafalka iyo dibakabashada dalka iyo midnimada dalkaba aad iyo aad marka waxa weeyaan dadkan mulkiilayaasha ah ee tifiyada iyo idaacadaha iska leh waxa soomaaliya ka jira intooda badan waa private waa common sense inay iyagu isxilqaamaan oo gartaan waxaanay hadda ka shaqaynayaane fidmaha ee isku dira ee dhibaataha ee ummadda waxyeelaynaysa inay ku bedelaan wacyigelin iyo wanaag aakhiradooda iyo adduunkoodaba way anfici lahayd iyaga laftooda iyo shaqadoodana ma garanaysaa faa'iido u yeeli lahayd laakiin hadday shilinka raacaan iyo vieweriska iyo inta qof ma garanaysaa soo booqatay website-kooda ama tv-gooda daawatay ay ku beegaan hawsha inay kasii darta mooye ka soo rayn mayso wacyigelintuna waa qodob muhiim ah waxaana xaqiiqaha saxaafaddu inay meesheedii bannaan tahay iyadoo xilli adag ummaddii soomaaliyeed ku jirto oo xilli baaba oo dhibaato ah oo dowlad la-aan oo qabyaalad iyo dayac iyo cudurro iyo nafaqa la-aan iyo ma garanaysaa la daala dhacayso dowlad weyn oo hanataana aanay jirin su-aashayda markaa ugu dambaysa anigoo doonaya inaad ku darsato heestii farteena ahayd ee aan isla ogeyn qorshaha ma kugu jirta adiga cismaan ahaan iyo inta kula mid ee khibradda leh inaad furtaan iskuul lagu barto saxaafadda oo certified ka ama maamul goboleed ha ahaado ama federal ha ahaato level ha ahaatee aad ku fulin kartaan waxbarasho akademiga oo aad dhalinyarada wax ku bari kartaan mase jira haddii anugu war dhulkii kama hayno waxaa laga yaabaa inaan ku weydiiyo 100 sano ka hor dhintay oo dee dadka qurbuhu waa well disconnected marka idinka ma idinku jirtaa mise maba jiraaba dee mid noocaas oo aad adigu ka war hayso adigoo kale aad macallin ka tahay adigu bara sarana waad aqoon sarana waad leedahay maasanta axmed intaan ogahay garowe markuu ka bilaabay inan dhalinyara oo yuulasaanada ka shaqayn jiray bedel looran jiray cabdiraxmaan bedel muddo gaaban kadib uu iska xidhmay hargeysoo kale nin leedo faysal farfadle oo tv-ga qaranka aanu ka wada shaqayn jiray ayaa dhaxaja ka furay waana keygii oo keliya manaahijna male sanadkiibana waxaa ka soo baxa 10 oo dadka shacbiga ah ay dhaliilaan runtii aanaan u jeedin saaxiibka inaan wax ka sheego laakiinse xaqiiqada taalla waa sidaa muqdisho oo kale ka jira urur saxaafadeed oo madax banaani ayaa shabaab saxaafadda lagu barto dhowr kuleedood ayaa la hadalaya 2018 markaan tegey waan ku hin sidaad sheegaysaa in ay aqoontu dadka khibradda leh laakiinse qof keligii wax qaban karaa ma jiro anigu dhowr jeer baan isku dayay dhalinyarada laascaanood oo kale oo aan ugu yeeray ballan u qabtay muddo 7 cashaa markaan badanaynay maalintii labaad ilaa dhowr iyo 30 bay ahaayeenoo hal wiiloo keliya ayaa iga yimid oo ka soo qayb galay ballantii soo fuliyey marka waxaa laga yaabaa in halkay ka iman lahaayeen tababarka ama aqoon kororsiga shaqo yaroo loogu yeeray telefoon loo soo diray oo xoogaa laga helayo dhadhamaa inay taa marka ay door jiraan mana jecel inaan macno laakiinse xaqiiqada jirta ee dhabta wax degdeg ayay
ku salaysan tahay waana waayo aragnimadaanta iyo dhalinyarnimada waana loo baahan yahay aqoonta dadkii lahaa inay iskaashadaan ilaahay baa sakrada oo meel walba waxa yaalla iskaashinta digitalka ahoo lagu wada hadlaa marka waa ku dadaali doonaa bal intii aqoon leh aanu garanayno in isku xidh loo sameeyo haddii lahaydno horta soomaaliga oo ka mid ah waxyaabaha badbaadiyey burburka aynu ku nabad galnay ummaddeena xidhiirkii communicationka u samaysay aad ba u qiimo lahayd ayaa waxaa arkaysaa in dadka qoraya markay mass media isticmaalayaan baraha bulshada iyo marka ay isticmaalayaan jiisyada laftooda iyo idaacaduhuba ay tajabiyaan oo farta aanay eegin hakad iyo shaqal dheer iyo xaraf laba laabma iyo haba yaraatee aan igu aabayihin marka waxyaabaha aadka dhibaatada loogu geystay burburkana ayay ka mid tahay qoridda farteedu heestaas oo 3 bayda baydka ugu horreeya ayaan kuu sheegayaa oo ka warramaysa tala siinaysa mas'uuliyadda inoo heliyo laga daayo candadowga la candadowlayo heesta farteena leedaa waana intayaa kooxay qato farteena ka daaya dheeldheelko dhamaystira shaqalka kii dheero labadhaca dhaawicinoo nabadda dhayalsaninoo dhaxdaan u dhigmaa ugu dhaxmaaye dhawaaqan waa la qaataaye dhabiisiga oy ku diirana ayay ku gaamataa heestaa farteeduna waxaan rajaynaynaa qof kasta oo damid leh oo walaga ugu soomaaliga qof walba madaaciga ku jiro waxbaa la raayay qof walbana waa la weydiin doonaa siyaabaha wixii la raayay marka arrimaha bulshada maafiintii hore iyo dadka aqoonta u leh iyo maqabeenada wasaahinta maalka jirkaba waa waxyaabaha aadka fara badan ee jannada ku heli karaan iyagoo aqoon furanti cilmi maaweelo iyo xiiso khayraadka dalka taariikhdooda sugaantooda murtidooda afkooda cid waliba waxay aday ku faantahay waxooda iba gelaya waana rajaynaynaa inay loo bilaabaan waqtigeena ilaa ciidankii saddex dikeyd 50 sano oo ku jiray dhibaatada inama hal cusri yusra baylaayi cusri walba yusri baa ka dambeeya qof walba furay baa ka dambeeya weliba laba furay ayaa ka dambeeya ilaahay baynu ka baryaynaa inaguna aynu kaalintada ka qaadano qof walibana meeshu joogaa iska xeel qaado aad iyo aad cismaan cabdinuur xaashi oo khaliifka loo yaqaano cismaan aad baad u mahadsan tahay waqtigaaga inkastoo xilli dambe idiin tahay waxaan rajaynayaa barnaamijkii maanta inaan intaa kusoo koobno cismaan cabdinuur xaashi suxufi keliya maha sidaan idiin sheegay waa shaksi muhiim u ah ummadda soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa mar kale iyo mar saddexaad ba inaan kusoo waco waxaan rajaynaynaa mar kale inaanu qabyaaladda aan ka hadalno curyaamisay ummadda soomaaliyeed oo aanu eegno bal waxaynu ka qaban karno iyadee wacyigelin ah ee isle ma garanaysaa iyo sidii looga gudbi lahaa sidaasaan maanta aan kusoo koobaynaa programkeennii inta aan mar dambe is-arag dambe xiisale wiigga dambe maalinta axadda ah sidaan idiin sheegay saacaddu markay tahay 2 duhurnimo dhinaca soomaaliyana ay tahay 10 habeenimo ayay inoo ahaanaysaa sidaa iyo is-arag dambe oo xiise leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ya no